دقيقة والله وأنا كل مرة وحنا مع سنة daawadayaal ku soo dhawaada filim documentary ah oo aan idinka soo diyaarinay sixir bararka iyo sidoo uu aafeeyay bulshada danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland filimkeenan oo aan ku soo qaadan doono muuqaallo badan oo naxdin leh dad badan oo aafeeyay sixir bararku oo xidhay albaabada haddaba yaa ka mas'uul ah sixir bararkan aafeeyay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sideese looga bixi karaa xilligan إفراح باشي وهو يله شن عرورة waxay ka mid tahay 1 milyan iyo dheeraadka qof ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo uu saameeyay sixir barar taabtay dhammaan adeegyadii bulshada sixir barar qorto wuxuu noo saameeyay si adag shicibka qole wixii oo dhan intuu wada saameeyay wixii si yar dayar taxana aad buu si saameeyay waayo mar waxa jirta qofku 10 haystay wuxuu jiray maanta aan u jirahay fostida biyaadi markaas waxa lagu shub jiray 6 imkana heer gaadhin aan la nooba shubinba oo booyadii diideenba marka wallahi sixir bararku aad buu noo saameeyay wixii tayara qoyskan waxaanu ku booqanay guriga ay degan yihiin waxay Ifraax Baashe oo ah hooyada qoyskani noo xaqiijisay inaanay maalintan aanu booqanay wax cunto ah aanay karsan haba yaraatee iyadoo lacagtii biilka ahayd waxba u jari weyday markii ay booshariga la tageen arrintaasi waa mid dareenkayaga taabatay wallahi anagu sidaan u noolay wadee noloshu iska adagta yaalku qodaya fadhiyo weeyaan maxay haydeen doodaygu horta wax amala maba hayaba dad waxa jiray wax laga soo gudbin jiray nimankan ay nagaba soo gelin isaguna dib wixii noo soo heliyay xubuu noo tirwaay wax ay goynayaanba baba jirtay fostida biyaa xitaa inay ku filan karin baa jirada walaal anagu noloshu aad bay noogu adagtay oo way adagtay nolosha maanta aan ku jirno sixir barar ballaaran ayaa aafeeyay dhammaan adeegyadii bulshada waxaa cirka isku shareeray qiimihii raashinka shidaalka iyo maciishadii kale ee daruuriga ahayd dhinaca kale waxaa dalka aafeeyay abaaro ba'an waxay arrimahaas oo dhammi dhaliyeen in dadkii danyarta ahaa noloshu ku adkaato haddii aad dhex marto suuqyada magaalada Hargeysa waxaad arkaysaa dad badan oo cabanaya cadhaysan ama fikir meel la fadhiya taasina ay sababayso nolosha cidhiidhiga gashay ee uu sicir bararku koow ka yahay shubkii bariisa waxa la igu yiri bakhaarka markii uu yaalay 120 qoyska xaaska ahayno 10 cisho kariya adduunki biyo ma haystaan dawladdu waxa naga may soo gaadhin cid kale oo maanta nacaawso waxba naga may soo gaadhin de baqti baanu nahay dad badan baana nala mida ganacsato aanu la kulannay mar aanu wax ka weydiinay sababta keentay sicir bararka waxay qaar noogu jawaabeen in sicir bararka aanay garanayn meel uu ka yimi qaar kalena umaba arkaan arrintan qiimo kororka inay tahay aafo qaran balse waxay ka doorbidayaan ganacsigooda arrimahaasi markaad u fiirsato ma aha wax sal iyo raad toona leh oo lagu sababayn karo maciishadan kor u kacday ascaartan imanka kacday horta sababaheega dee wax xagga min allaahida ka imanaya haddana de waxaynu caalamka la qabno magaaladuna runtii dadka xagga dhaqaalaha aad bay u hooseeyaan dayartu aad iyo aad bay ugu liidataa meeshan maxaa ma iibsan karto dhinaca kale waxaan isku daynay inaanu la kulanno madaxda wasaaradda ganacsiga siiba wasiirka balse way noo suurtageli weyday inaanu la kulanno intaa kadib waxaanu isku daynay haatan codka dareenka xambaarsan ee dadweynaha inaanu soo bandhigno maadaama saxaafad ahaan waajib weyn uu naga saaran yahay maciishadu halkay maraysa dawaynu wada ognahay waxaweyaan dee dadkii danyarta ahana hadalkiisa badaaba
waxaweyne anagu hadhuurka iyo arabikida waxa waddankeenna ka soo baxayaannu iibin jirnay gadbadda hadhuurkii markii hore waxay ahayd 50 maantana 150 bay maraysaa dee waad garan kartaa faraqa u dhaxeeya qof dan yari oo maalintii 5,000 ama 6,000 oo shilin dee suuqa ka soo heli jiray waa galaan hadhuur hadda wuxuu ka soo helaa galaankii hadhuurka maqaday noqonaysaa ma quraac bay noqonaysaa ma cashay noqonaysaa adduunka mid reeriyowga iyo telefishinkun maqlo yidhi waxbaa kordhay oo cunaanna qabtay oo dalka isku duubay ayaan ka hadlayaa ilbaxu maaha in reeriyowga la dhegaysto le adduunkii baa wax ka qaaligaroobeen oo raashinkana haysa dadka maatidaa cunaa lagu qabto waa jaahilnimo taas kelmad xigmadana maaha waxaan ka hadlayaa ninkan aan laga soo siin ee qaaliga ku soo iibsan ee raashinkii hore haya ee saakana yidhi sixir bararkii nagu kacay ee maatidii iyo carruurtii naga cuna qabataynaya waxaanu leenahay waxaa laga qabto waxaanu ka cabanaynaa shidaalkan maalin walba maalinta ka dambaysa sii kacaya iyadoo ay khayran macquul tahay oo aanan qaadan karaynin maalin keliya oo foostadii shidaal ahayd ay $60 ay ku kordhaan waxa wax lala yaaba ah sixir bararka intaa leeg ee maalin walba soo food saaraysa ummadeenna danyarka iyadoo dadkii aanu qaadaynay ee naga kiraysanayay gawaadhiduna aanay qaadi karayn nooligii haddii aan ku kordhino iyadoo marka hore aanu qofka ka qaadaynay 30,000 oo shilin maanta dadkii nagama aqbalayaan haddaan ku nidhaahno 40,000 oo shilin baanu qofkii ku qaadaynaa anigu nin naafaa baan ahay ciidamada ayaan ka qaataan yaroo lacaga oo gurnaa intii yaraydeen qaadanayay wax maanta ay ii goysaa meeshii ma jirto hadhuur baan ka dhigay sidii u beddel oo kii raashinkii noo soo baxayay u beddelaan sidhi maanta waa ii goyn weyday xer hadhuurdhii baan dhex marayaa oo wax maciishadii igu filan ma jiraan ubadkayguna waa 9 carruur iyo hooyadood marka anigu baaba u sii ladadoo dee meel baabaan wax ka yar qaadanaya kuwii aan waxba qaadanahayna ka sii daranba way baaba'een ummaddii taasi waa taa marka ilaahay waxaan ka baryayaa horta faraj ka wanaagsan inuu inoo furo danyartanna indho gaara la siiyo mid dawladeed iyo mid tijaareedba tijaartana aad iyo aad wax uga codsanaya bal dadkan hadday maanta dhammaadaan halkay wax ka iibin lahayn dib ma u fikirayaan inay dib u fikiraan daawadayaal filimkeennan dokumentariga ahi wuxuu ka tarjumayaa nolosha dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa haddaba daawadayaal sidaad u socotaan waxaa suuqyada caalamka ka kacay ascaarta laakiin may ahayn in dadkan danyarta ah ee ku dhaqan waddankan faqiirka ah ascaarta sidan qeyralxadka ah kor loogu qaado waxaa la gudboon xukuumadda iyo baayac mushtarigaba inay dadkoodan danyarta ah hoos u eegaan dhinaca kale waxaa dadka la gudboon iyana inay fashaan beerahooda lana soo baxaan wax soo saarka dalkooda kaasay kaga bixi karaan aafooyin sidan oo kale mararka qaar ugu dhici kara